فضيلة الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي في العقيدة، مرة شرحنا كلمة من سيرada Nabiga عليه الصلاة والسلام أصابهم أها undrisay walaalo laakiin waa kana xigeen maashii la tegay doonayna waxoogaa taariikhda Nabiga عليه الصلاة والسلام siiradiisana wax kala dhaano waxaanan isku day doonaa inaan qaabaan ilqeynayaan kitaabka farta marinaynin inkastoo dadka inta badan codsanayeen kitaabka raxiiqul maxtuum la yiraahdo aniga sawii gala macaan yahayba akram diyaal umar siira nabawiya saxiixa kiisa la yiraahdo laakiin waxaan isku day doonaa bal umuman labada kitaab aynu adeegsanayna wixii oo kooban inaynu soo bandhigi doono waayo siirada Nabiga عليه الصلاة والسلام waxay tilmaamaysaa waa diintii oo la dhaqan galiyay marka waa dadkii diinta dhaqan galiyay Nabiga عليه الصلاة والسلام iyo saxaabadiisii oo ah sifadii ugu saxsanayd ee loogu dhaqmo islaamka inaga waxayna inaada isagoo quraan iyo sunna oo qoraal ah laakiin marka tan waxa weeyaan isagoo amaliya oo dad ay metelayaan quraanka iyo sunnada yani dad ama bashar dhaqankiiba waxay metelayaan quraanka iyo sunnada sida waqaaye sadaradeed way fahamkeedu uu ka dhow yahay qofku inuu markiiba suurad fiican ka fahmi karo diintu sida ay ku faaftay ama wixii ay siday ama risaalada iyo macnaheedii waxaan isku day doonaa markaasi balsay labada sheekh u soo naqlayaan inta badan inaanu soo guuriyo haddii ay jiraan mawaadiic ama meelo loo baahan yahay in gaar loo sii tilmaamo insha allah haddaynu awoodno isku day doonaa umuman culamada muslimiintii markay siirada ka waramayaan waxay u sameeyaan gogol dhac ama hordhac hordhacaasi waxay ka bilaabaan ama waxay ku tilmaamaan wixii nabiga ka horeeyay calayhi salaatu wasalaam hordhac waxaa looga dan leeyahay inay dadku fahmaan bulshadii uu nabigu u yimi caynka ay weekay si aad u garan karto inta ay guurtay bulshadani markii dambe sida weekaatay yani waxaad qiimeyn fiican sawiri kartaa nabigu عليه الصلاة والسلام iyo saxaabadii uu soo saaray iyo mujtamacii muslimiinta ay kawanmay sida ay kaadeen inta uu u jiray mujtamacii hore ee jaahiliga ah oo marka ka jaahiliga suuradiisa aragto ayaad garanaysaa dadkan inta ay guureen inta ay leekay waxa kale oo runtii dhawaanaya aad garan kartaa maadaama mujtamac nooca uu aad la horay oo islaamnimada ay bedelka inuu jirin mujtamac dunida mid ilaa la rarin karo ay ku xiran tahay sida Allah inoo subhanahu wa ta'ala kujuhdi uu bixiyo dadka diinta tan ugu yeeraya qaybta kay ka waramayaan culimada taariikhda islaamiga oo qorta qaarbasi bay u tilmaamaan qaarkood ilaa aadam bay isku dayaan taariikh muujisa in ka soo sheega yani min aadam kutub taariikh badan oo kamid nabi aadam bay ka soo bilaabaan qaarkood waxay ka bilaabaan dhulka iyo cirka iyo sidii loo sameeyay waa ka ilaa ay soo gaarsiiyaan laakiin taariikhaha hore qadiimka waxoogaa yareen waxyigu sheegay mooyaane inta badan maxfuud maaha sida awgeed labadan kitaab horteena yaala midba in buu soo koobaya laakiin waxa isku day doonaa inaan si fudud u wada guud maro ummadda carbeed iyo dhulkay degto waa dhul macruufa carabina intan jaziira alcarabiya la yidhaahdo unbay taariikhdeeda dambegi jirtay carabta taariikhiya markay culimadu qaybinayaan ilaa 3 qaybood bay ka dhigaan carab ay yidhaahdaan waa alcarab albaa'ida ama carabtii tirtirantay hore ee gabowday waa caad iyo samuud iyo kuwan quraanku ka warramo iyo carab ay ku tilmaamaan alcarab alcaarida oo ah bahbaaniyiinta nimanka la yidhaahdo carabta gasha iyo carab almustaaraba oo ah kuwii nabi ismaaciil calayhi salaam ka abuurmay ama cadnaan cidda gasha inkastoo culimada bad ay leeyihiin qaxfaan iyo cadnaan labaduba ismaaciil bay galeen waana sida uu rajaxay ibn xajar al-asqalani xafidahullah rahimahullah al-hafid ibn xajar sida uu rajaxayo oo isagu wuxuu leeyahay labada kooxoodba qaxfaan waa min aal an-nabit ibn ismaaciil buqaba halka ay qoladan kale ka yihiin
عدنان بن إسماعيل أي كجليا مركا إنه ساق وابنه هذه يقول تاريخ عربات مثلا في الماما مثلا قحطانيين كان من كلا هذا أصل وحى يمن نبى قبيلة وين وهو كيف سنايين لمن حمير ليلة هذا هي لمن كهلان لو نشري كهلان أنت بدن وجورنا الشام يا مصر يدل كسيدة كده يشري ما كده بايه وبدنايه حمير أنت وبدنا ده كما يشتغل كصاحبي عربت كلا مستعرب عدنانيين كلا نسبين أيه وعربت مركزي نبي إسماعيل كدبوا بقى مصطفى نبي إسماعيل نوين النبي إبراهيم عليه السلام النبي الله إبراهيم نصينا تاريخ تقوى حينه دولك عراق بكصاب حي لما دولك عراق بقول الشيء سنة فلسطين وفي جرودي كذبنا وفي يمي مكة كان مكة تبلغ السمية وحانو كان يسين ولا نقلنا حديث في بخاري فيها لابن عباس ورينا موقف ابن عباس وها سيدو شيغي أولا يدي هاجر الورنشري هي علمها هذا الشيء ونبي الله إسماعيل عليه السلام اللي بدو ذاتي أيو مكة كاني دبتنا مكة أيو كغتغي سوغان وحبا وغتغي وغتغي وقرا سبرار بيا هي متمرة أما لبا ويلا من بيا كجران مدنا تمري كجرتو وشاغينا إنه إلهي سبحانه وتعالى أمري إنه هالكاسة تغو إذا إنه تاريخ تطوينا على سلامة إبراهيم إنت الله هو أثر شير أوطن بأي ليش عن تكسونه يعني مركا هراء إسماعيل كان مرة بعض أيو يمي وأحمد كان أي نصوص القرآن كي كور رمى يسيو الربيين وقالوا أما إنه قورعوا ويلك إسماعيل فلما أسلم وسله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم مثل الله سبحانه وتعالى كور رميه ويقول هذا كتاب التوراة هاي سطح أما كان يمكن التوراة كشيء سفر التكوين كذا وكشيء ودوري تبنشر مركعها نبي الله إسماعيل مرلبات يقصوا النقضينا ومركع حديث كور رمشاين ويمي ودبتنا ويمي سبوا نبي إسماعيل كما كان يهي جورجيسي وقبل وقبي ويمي دبتنا ويديي حال كود يسدو يهاي ويشاغسي مركعسي إن لبضنا هي سطح الله شايع عيد فصحي أو يدوا تجيئا إن كي يفرين تجارتي وحصل في الأبعاد وحقوري عصبات الباب أما كابت بوريجا جبتل أيو في الأبعاد نبي إسماعيل لما كيو يمي أي قبض هو خاصي وفهم يا به وركي وقصة وهذا قبض نسكتي دامت خير بدن ما هي تبتنا وسكتي دايس نوحك الله رواية بحديث الشيء يعني مركلين إسماعيل يمي نبي إبراهيم مرتب حاجة لقصة نقطي كل قاسي marka saddexaadna wuxuu yimi isagoo Ismaaciil gabadh kale uu guursaday si hore u furay gabadhii kale markuu la hadlayna ee xaalkooda weydiiyayna waxay ku tiri waa fiicannahay iyana fariiq uu faray oo wuxuu ku yiri waxaad ku tidhaahdaa inankaygi waa tagayaa isagoo maqanaya nabi oo safar ku jiro fariiq labaad yani gabadhan hayso waraa buu uga tegay mar afraad bay